daawade ninkan aad ujeedaan waa nin afrikaan ah. waxaa ku dhacday qiso xanuun badan. adiga i daawanayan way kugu dhici kartaa. muuqaalkan inaad daawatid ayaa ku fiican oo aad wax ka ogaatid dhibaatada ninkan ku dhacday in adigana maalin ay kugu dhici doonto. daawade barnaamijka intaan u guda gelin waxaan kaa codsanaya inaad share iyo like iyo comment barnaamijkaad ka bixaysid si uu meel fog u gaaro. anigana waxay ay tahay dhiirigelin mahadsanideen. daawade ninkan waa nin afrikaan ah. wuxuu ka soo duulay wadamada Yurub mid ka mid ah. wuxuu u soo socday Afrika. markii garoonka diyaaradda uu tagay oo boorsidiisii wixiisii oo dhan uu rabo inuu geliyo muxuu ahaa asiga meesha loogu talagalay baggage department, meesha loogu talagalay in la geliyo boorsooyinka, ayaa wuxuu arkay waxaa dhinaciisa taagnaa gabar ama maamo caawin u baahneed oo boorsadeeda in loo qaado meesha loo geliyo rabtay. isaga markuu gastay boorsidiisa meesha loogu talagalay ayay waxay ka codsatay inuu caawiyo. waxay ku dhahday bliis boorsadan meeshaad adiga saaratay ii saar. isagoo raba inuu saaro ayaa waxaa soo booday nin kale oo dhinaciisa taagnaa. isla markii qadii ninkan afrikaanka ah uu qaban rabay ayaa waxaa qabtay ninkii kale oo meesha taagnaa. isla markiiba dhac boorsadu ka qaaday meesha uu saaray. kii wuxuu is dhahay war ablugu fududeeyay shaqada ninkaan qabtay. kadib diyaaradda ayay koreen. naagtii waxay samaysay ninkaan aad aragtaan gadaasheeda hadda ka muuqda oo afrikaanka ah ayay adayn caawa dhahday ayay agtiisa fadhiisatay. kadibna waxay ka dhigatay friends. dad waxaa jira ma ogtahay markii safar ah ku jirtaan hoosta kaa soo galaayo kula sheekeysanayo friends kaa dhiganayo. iska ilaali ma fiicna. hoostay ka soo gashay friendsay ka dhigatay, way la qoqosushay, way la sheekeysatay. ninkan wuu yaaban yahay se marka ugu dambeysay waxayba ka dhigatayba wiilkeeda. waxay ugu yeeraysaaba wiilkeygiiyow isagoo yaaban diyaaraddana la saaran yahay sheekan ay u baxaysa. dadka diyaaradda saaran oo dhanna waxay u qaateen in ay isla socdaan labadan qof ay yihiin family. isaga oo yaaban yaa maxaa dhici doono yaa ayaa waxaa dhacay markii ugu dambeysay ee diyaaradda ay degi rabtay inay qoftaan istuurtay. markay istuurtay waxay dhahday dadkii oo diyaaradda ka shaqaynayay waxay dhahday wiilkayga leego wuxuu dhahay aniga naagtaan islama soconno wiilkeedana biihi intaan ku kulunay marka I don't know waxay damacsan tahay. saaxiibka ayaa ka dhegaysanaya. isla markii barnaamijkii kaniiniga la siiyo ay soo booday diyaaraddii. markay degtay ayaa isla markii jeebad dhab lagu dhahay. maxaa yeelay qoftan waxay ahayd drug dealer. waxay ahayd dad naagaha drugska kala gudbiya. ninkan ayay waxay rabtay inay mission ama shirqool ay luqunta u geliso, balse ilaahay ayaa ka badbaadiyey. isla markiina waxay iska soo jirtay ninkaana ay la socday oo kale waa isagana dhab qabac. dadkii meesha joogayna haddaayay ka shakaysanayeen. saaxiibkaa baasboorkia laga qaaday. baasboorka marka laga qaaday iyadaa waxaa la weydiiyey haddii ninkan uu yahay wiilkaaga magaciisa sheeg. ninkaanna markay diyaaradda isla saarnaayeen wax magac ma uusan sheegin. sanamkiisa magaciisa dhexe iyo muxuu ahaase firstnameka iyo midhalkaba wax u sheegay malaha. saaxiibtaa indhahaytaa taagtay. waxaa la dhahay wiilkeygana waa taagantahay magaciisna mataqaanid. wiilkii baasboorkiisa la siiyey iyadana xabsigaa la dhigay. barnaamijkan maxaa usoo qaatay? dadka soomaalida badanaa safraa. dhacdadan way kugu dhici kartaa. ka feejignow markaad diyaaradda saaran tahay. qofna hala hadlin. muxuu ahaasige
bahalka dhegaha loogu talagalay wax lagu dhegeysto gisho iphone-ka tartiibkaaga qofna hala sheekaysan haddaad la sheekaysatid dhibaatadan oo kale ayaa kugu dhaceyso marka waa degniin waxaad dirtaan barnaamij hadirtaan oo khaas ah aan hadirtaan meesha aan ka sheegayna malaha balse waa digniin barnaamijkan haddaa halkaan ila soo gaartay waxaa kaa codsanaya inaad share ilaagi comment barnaamijka ka bixisid si uu meel ku gaaro anigana waxay tahay dhiirigelin mahadsanidin